barasaabka cusub ee gobolka Hawd Axmed Ciga Maxamed ayaa maanta xafiiskiisa shir ku yeeshay isku duwayaasha laamaha kala duwan ee dawladda ee ka howlgala magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd. Isku duwayaasha laamaha kala duwan ee dawladda ee gobolka Hawd ayaa waxa ay barasaabka gobolka Hawd warbixin ka siiyeen hawlaha shaqo ee qaranka mas'uulka uga yihiin iyo sidoo kale waxyaabihii horumarineed ee uu qabsoomay. haddii aan ka hadlo wasaaradda waxbarashadu waa saaxiibka ugu dhow ee gobolka, waayo iyadu wixii loola tago ee codsiga loo qoro marka way fulisaa. aadna waan ugu mahadnaqayaa sida foojignaanta leh ee wanaagsan ay ugu soo jeedeen gobolka. haddii aan ka hadlo waxyaabihii intaan noo qabsoomay sanadka aan joognay, horta gaarigii gobolka wasaaradda waxbarashadu way noo ogolaatay, wayna soo siisay. waxaa kaloo noo hirgelay in ay noo fuliyaan ama ay noo soo wareejiyaan shaqaalaha gobolka mushaaraadkoodii oo u madax banaanaado. shaqaalaha gobolkuna waxa weeye 120 shaqaale oo gunaysan. qodobka saddexaad ee noo hirgelay waxa weeyaan wax laga hirgeliyay laba dugsi baa laga dhisay laba deegaan oo kala Warward iyo Balligubadle. Balligubadle oo lagu daray laba fasal iyo Warward saddex fasal laga dhisay. waxa kaloo jirta oo noo qabsoomay in sanadkan 2020 ay noo hirgelay in 9 dugsi ay la soo gaarsiiyo mashruuca horumarinta waxbarashada. horta kulankan waa kulan khayr leh oo kulan qiimo leh. barasaab aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa. nasiib baan runtii u yeelanay in barasaab cusub maanta shirka aad noo qabatay mana noqonay midkii u horeysay. aad iyo aadna waan kugu soo dhawaanaa ku hambalyeynaa. anigoo ah isduwaa shaqadii arrimaha bulshada gobolka Hawd, magacayguna yahay Faysal Xarbi. waxaan horta kan ka warbixinayaa wasaaradda aan ka shaqeeya waa wasaarad ballaaran xaqiiqad makhruunta loogu tago. waxaan rajaynayaa gudoomiye inaan waxyaabo fara badan oo adiga la shaqeyn doonto xagga wasaaradda. aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa shirkadan noo qabatay maanta. aan ka warramayaa anigu wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaan u joogaa gobolka. waxa kaloo halkan aan ka samaynay mashruuc la yiraahdo nutrition sensitive learning. la yiraahdo mashruucaasi waxa weeye mashruuc 18 aqal greenhouse oo anubal nutritionkii package-ka lagu keeni jiray ama lagu keeni jiray kartoonka in laga soo saaro dhulka. xafiiskaygu horta aniga uu furay midna gudoomiye uu shaqeeyaa gaadiidna waan leeyahay oo gaadiidkaygu uu shaqeeyaa kulli kharashaad igu filanna miisaaniyadda 2020 ugu filan wasaaraddeedu Marwo Shukri Xaaji Boondare iyo agaasimaha guudba Cabdinaasir runtii way ii suurtageliyeen. aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa. waxa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha gobolka Hawd Maxamed Faarax Suugaal. kulankan aynu maanta yeelanay xogayahan waxaan uga faa'iideysanayaa 3 qodob. 3 qodob oo kala ah in isuduwo walba oo gobolka ka tirsan kana hawlgala oo ay kala shaqeeyaan hay'ado in ay soo gudbiyaan oo ay mataqaanay soo diiwaangeliyaan hay'adahana ay soo marsiiyaan gobolka xaq u leh si uu diiwaangeliyo security-koodana ugu sugo. gabagabadii kulankaasi waxaa la dardaaran mahadnaq iyo dhiirigelin bay iskugu jira ka jeediyay barasaabka gobolka Hawd Axmed Ciga Maxamed. aad iyo aad bay idin u mahadsantihiin. xogtaynu isla wadaagnay. waxaan idhi dhammaanteen sidaan horeba u sheegay waxaynu nahay adeegayaal ummadda u adeegaya. mas-uuliyadda ayna saaranna inaynu u gudanno si ilaahayna raalli gelinaysa si aynu ugu xalaaloobaan gunnada yar ama wax yar aynu helo dadkeennana waxtar aynu ugu gaadhsiin lahayn. waxaana anigu barasaab doonaya in layla xisaabtamo oo idin isuduwayaashiina ku dhiirataan inayna tidhaahdaan barasaab waxaa maxaad u qaban weyday, halkaasaa dayacan, halkaa noo raac, halkaa wax nagala qabo. baan doonayaa inaad noqono. waxaan rabaa insha allahu tacaala inta aan joogo inaynu wixii ilaahay agtiisa laga waayo mooye inaynu dadaal badan samayno. waxaan bala qaadayaa wasaarad kasta mar iyo 2 iyo 3 inaan kula noqnoqono sidaynu ummadda
fariinteeda iyo baahiyaheeda aynu gaarsiino cidda heer qaran mas-uulka uga ah. maxaad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muse biixi cabdi oo iisoo magacaabay gobol dadkiisu horumar ka fekerayaan. maxamed jiciir oo Axmed TV qaranka Somaliland magaalada Balligubadle.